asalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenii diblomaasi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. daawadayaal qarax aad u weyn ayaa ka dhacay masaajid ku yaala magaalada bishaawar ee dalka baakistaan. qaraxaas ayaa waxaa ku geeriyooday 44 ka mida dadkii halkaa ku cibaadaysanayey, waajibaadka ilaahay duldhigana gudanayey, halka ay ku dhaawacmeen 150 kale inta ilaa iyo haatan la xaqiijiyey. sida laga soo xigtay cusbitaalka magaalada bishaawarna tiradu ilaa iyo haatan waxay maraysaa intaa, waxaase la filayaa inay kasii badato. daawadayaal waxaa wax laga naxa ah in qof islaama uu sheegto inuu yahay isagu kan masaajidkaa qarxiyey xilli ay dadka muslimiinta ah ilaahooda hortaagan yihiin. dadka mujaahidiinta ee maalinimada maanta ku dhintay masaajidka ayaa ilaahay hortegay iyagoo awaamiirtiisii u hoggaansan, salaadihii uu faray mid ka midana tukanaya. balse waxaa hoogay oo xisaab adag u taallaa kuwii iyagu falkaa ka dambeeyey kuna faanay, sheegtana dadka ay laayeen inay ahaayeen kuwa murtidiina. daawadayaal durbadiiba arrinta waxaa sheegtay hogaamiyaha urur taabacsan ururka daalibaan oo ah isagu urur ka dagaalama gudaha dalka baakistaan. waa urur aynu odhan karno waa garab ka tirsan daalibaan oo ka dagaalama dalka baakistaan. masaajidkan ayaa daawadayaal waxaa ku yaallay xaafad ay ku badan yihiin xarumaha dowladdu. waxaa dhinacyadiisa oo dhan ahaa bangiyada, wasaaradaha, saldhigyada booliska iyo militariga. daalibaaniyiintuna waxay u aqoonsan yihiin qof walboo dowladda u shaqeeya inuu yahay qof gaala oo murtida, dhiiggiisuna uu bannaan yahay. waana sida ay sheegteen kuna faaneen inay maanta murtidiin badan halkaa ku laayeen, xilli aynu u wada jeedno dadkaasu inay ahaayeen kuwo muslimiin ah gudanayana waajibka ilaahay. daawadayaal wax aada looga yaxyaxo waxa ah in qof islaam ah uu masaajid ilaahay weeraro, isagoo og qur-aankeenna inay ku caddahay masaajidadu inay yihiin guryihii ilaahay. qofka islaamka ah haddii uu ku badbaadi waayo masaajidna ma ay jirto meel kale oo uu ku badbaadi karo. masaajidada ayaa laynooga baahan yahay inaynu ka xishoonno. imaamada masaajidada gacanta ku haya anka e haddii ay qof magangeliyo siiyaan, ciidan walba iyo awood walba iyo madax walba aynu nahay, waxaa laynooga baahan yahay inaynu qiimayno masaajidada. balse nasiib darro maanta waxaa dhacda dowladaha islaamka inay qiimeeyaan qofkii kaga dhunta safaaraday gaalo leedahay, halka masaajidada ay u fududahay inay iska weeraraan amaba ay xabsiyada ka buuxiyaan imaamada iyo dadyowga muslimiinta ee xumaanta ka diga. daawadayaal waxaan idinka codsanayaa dadyowga muslimiinta ee dhibaatooyinka noocyadaasoo kale ay soo gaaraan inaad ku caawisaan wax walba aad ku caawin kartaan. sidoo kalena awooddiinnu haba yaraatee aad dhalaacaysaan dadyowga iyagu muslimiin inala sheegta, diinteennana ku ciyaara, magaxumana u soo jiida, weerarana ku qaada masaajidada iyo goobaha ilaahay. daawadayaal ilaahay waxaynu uga baryaynaa qaswadayaasha inuu ilaahay soo hanuuniyo, haddii kalena uu inaga dhex saaro. muslimiintana quluubtooda ilaahay isu keeno, ayna ilaashadaan karaamada iyo sharafta diintooda. diinta islaamka waa diinta iyo ta keliya ilaahay agtiisa ka sugnaatay, waana midaynu ku wada faani karno. balse dadyowga noocaas oo inagu dhex jira ayaa waxay yihiin kuwo magaxumo adduunka inooga muujinaya. daawad adiga maxay kula tahay dadyowga sidan oo kale u dhaqma bini aadanka oo damiir kale oo u soo qalab qaadanaya inuu weerar ku qaado goob ilaahay iska leeyahay? fadlan aragtidaada nagula wadaa qaab kommentiya mahadsanid. بسم الله الرحمن الرحيم. O most merciful, O most kind Allah, O my Allah, your kingdom is limitless. O my Allah, your greatness is such that our dirty, filthy tongues cannot do justice to declaring your majesty and your kibriyai and your honor. O my Allah, O my Allah, you have written on your arsh, Inna rahmati sabaqat ghadabi. My rahmat is greater than my anger. O my Allah, these slaves of yours have come on your doorstep. Right now you are asking your angels, why have they come? Your angels are informing you they have come because they fear your azab. They desire your maghfirat and your mercy. O my Allah, O my Allah, do not turn us away empty-handed. O my Allah, there is no other direction we can turn to.
There is no other door we can knock upon. There is no one else we can turn to. It is only you, Ya Allah. If you send us away, we will still have to come back to you, O my Allah. O my Allah, the little child, the mother pushes the child outside the house. The child drags its feet. The mother continues pushing till eventually she pushes the child out of the house. She closes the door. The child grabs hold of the door and starts crying, waiting till eventually the mother will open the door and take the child to her bosom. Oh my Allah, you love us more than our mothers. Oh my Allah, you love us more than our mothers, Ya Allah. Ya Allah, we have come to place our pain, we have come to place our difficulty in front of you. There is no Rabia Basri amongst us. There is no Junaid Baghdadi amongst us. It is only us sinners, Ya Allah. Ya Allah, it is only us sinners, Ya Allah. We are the weak section of the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ya Allah, the ummah of your Habib sallallahu alayhi wasallam is going through great difficulty and hardship, Ya Allah. The homes of this ummah are being bulldozed. The rivers are flowing with the blood of this ummah, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, no doubt it is our gunas, no doubt it is our wrongs, Ya Allah. Ya Allah, you commanded us. You commanded us to lower our gaze, we raised our gaze. You commanded us to block our ears, we opened our ears to music. Ya Allah, you commanded us to fill the masjids, we emptied the masjids. Ya Allah, you sent us to introduce humanity to you. Ya Allah, our youngsters have guitars in their hands. Our young girls have become naked and are singing on the stages, Ya Allah. Ya Allah, whatever is happening, no doubt it is your justice, Ya Allah. Ya Allah, but we are the weak ones of the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ya Allah, the tolerance of the parents towards the weak child is more, Ya Allah. There is no amal we can present in front of you. We haven't made 1 2 rakat salah that is worthy of presenting in your court. There is not one sajda that we have made that is worthy of presenting in your court. Ya Allah, Ya Allah, khar hai, badkar hai, डूबे हुए जिल्लत में कुछ भी हो, लेकिन तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है या Allah. The only thing we can present in front of you, Ya Allah, is that we are the ummah of your Habib sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, for the same ummah he was pelted in Taif. For the same ummah he tied stones to his Mubarak stomach. For the same ummah his blood flowed in Uhud, Ya Allah. For the same ummah his daughters were given talaq. Ya Allah, the hands of a thief were being cut off. Your Habib sallallahu alaihi wasallam could not bear it. If he were alive today and he saw the babies of his ummah slaughtered like this, what would happen to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, change the condition, Ya Allah. Ya Allah, blow the winds of hidayat, Ya Allah. Ya Allah, give America hidayat, give Europe hidayat, give Asia hidayat, give Africa hidayat, give China hidayat, Ya Allah. Ya Allah, you have said in your Quran, إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَا خَاضِعِينَ. If we wanted, we will send down one sign and everyone will get hidayat. Ya Allah, show us that sign, Ya Allah. Ya Allah, show us that sign, Ya Allah. Ya Allah, there will be no shortage in your treasures, Ya Allah. Your Habib sallallahu alaihi wasallam will become so happy, Ya Allah. Millions and millions of insaniyat like ants are going towards Jahannam.